Assalaamu calaykum. Waan islaamay dhammaantiin daawadayaal. Halkani waa jiraalka maanta. Waana barnaamijkeennii ugu horreeyay ee aan soo gelinay. Wixii dambana waan isla soconanaa. Ilaahay bulaanshihi. Barnaamijka maanta wuxuu daaran yahay in caalim ahaa oo dadka cilmiga diinta islaamka u faa'iideyn jiray ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxa uu waraystay ardaygiisii oo muddo 33 sannadood ah aan mar kaliya ka dheeraan ama ka fogaan. Kadibna wuxuu ogaaday in muddadaas dheer casharada uu ardaygiisu ka faa'iiday 8 kaliya ay yihiin. Su'aashu waxay tahay 8 cashir ma yihiin kuwo u qalma waqtiga intaas leeg? Qisadan oo xigmad badani ku duugan tahay ayaa ardaygii isaga oo tirinaya duruusta uu cilmigaasi ka bartay wuxuu yidhi: 1. Waxaan bartay in ruux kastaa uu dunidan ku leeyahay hiwaayad iyo balwad uu jecel yahay oo uu ku raaxaysto, laakiin maalinta uu dhinto ama geeriyoodo ay adduunyada kaga hadhayso. Markaasaan doortay in xasanaadka iyo cibaadada aan ka dhigto wehel iyo jacayl dhab ah, waayo waa shaqada keliya ee la hubo in ay qabriga kuu raacayso. 2. Waxaan bartay qowlka Alle macnihiisu yahay qofka ka cabsada horjooggiisa Rabbigii hor istaagiisa doona ee nafta u diida hiwaayada iyo balwadaheeda raacdo, jannada ayaa hoygiisa ah. Markaasaan naftayda ka fogeeyay hiwaayada oo aan ku xasilay daacadda Alle. 3. Dadka oo dhan ayaan u fiirsaday, markaasaan arkay in qof waliba uu si gaar ah u haysto shay qiimo badan ku ag leh oo aan marnaba dacaayad u quuraynin. Haddana waxaan eegay hadalka Alle ee macnihiisu yahay waxa aad haysataa waa wax dhammaanaya, waxa alla haystaan waa u waaraya. Markasta oo hanti shay qiimo badan waxa aan u bixiyaa hor Alle si isagu agtiisa igu ilaaliyo. Sadaqada maalka. 4. Waxaan arkay dadkii oo dhan oo isugu faanaya maal, nasab iyo tol. Kadib waxaan eegay hadalka Alle macnihiisu yahay Alle agtiisa waxa idinku qiimo badan kiina ugu Alle ka cabsi badan. Markaasaan dhex u xirtay cabsida Alle si aan Alle agtiisa laandheero ugu noqdo. 5. Waxaan arkay dadkii oo badhkoodba badhka kale ceebeynayo oo dhaleecaynayo sababta ugu badan ee keentayna ay tahay xaasidnimo. Kadib waxaan eegay hadalka Alle ku yiri Qur'aankiisa ee ah: annaga ayaa noloshooda adduun u qaybinay risiqa, lacagta, caqliga, fahamka, cilmiga, awoodda iyo wixii lamid ah. Markaasaan iskaga tegay xaasidnimadii dadkiina sharkooda ka dheeraaday. Waxaan naftayda ku qanciyay in qaybtu ay xagga Alle ka timaado. Markaasaan xaasidnimada ka bogsaday. 6. Waxaan arkay dadkii oo badhkoodba badhka kale colaadinaya oo dhiigooda qubaya. Markaasaan haddana eegay hadalka uu Alle ku leeyahay Qur'aankiisa: shaydaanku cadow ayuu idinku yahay, ka dhigta u garta. Markaasaan iskaga tegay colaadda aadamaha oo aan u banbaxay colaadinta shaydaanka oo kaliya. 7. Waxaan arkay dadkii oo mid kasta naftiisa u xanuujinayo una dulaynayo sidii risiq u heli lahayd.
oo xataa mararka qaarkood ay la galayso wax aan xalaal u ahayn. Markaasaan haddana dib u eegay hadalka Alle leeyahay, ma jiro noole dhulka guudkiisa jooga oo aan Alle risiqiisa saarnayn. Markaasaan nafta ku qanciyey in aan ka mid ahaado noolahaasoo Alle risiqooda dusha u ritay ee dhulka uu ku dhaqay. Sidaa awgeed waxaan ku mashquulay waxa uu Alle inagu leeyahay ee waajibka ah soo bixis isigana Alle ayaan u dhaafay inta aan anigu ku leeyahay oo ah inuu irsaaq. 8 waxaan eegay dadkii oo markaasaa arkay in mid kasta oo mid ahi uu ku tiirsan yahay oo uu tala saartay makhluuq kale oo sidiisa uu Alle abuuray. Maalkiisa iyo risiqiisa ayaa ugu tiirsan yahay mid danihiisa kale, taladiisa talada deegaankiisa ayuu ugu tiirsan yahay mid caafimaadka ayuu ugu daba fadhiistaa meel kasta oo qof ayaa u samaystay. Markaasaan haddana dib u eegay qowlka Alle ee micnihiisu yahay, kii Alle tala saarta Alle waa uu ku filan yahay. Markaasaan anigu faraha ka qaaday in aan makhluuq tala saarto, kuna dadaalay in aan arrimahayga oo dhan